Guddiga gurmadka fatahaada dowladda Koonfur Galbeed iyo Geega Kulanku weelada xarunta wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo wayna ku warbiyeen xaaladda guud ee fatahaada iyo walaaca ku kororey xirnaanshaha wadadan dhexeyta Afgooye iyo Walaweyn taasoo muddada fatahaada biyo wabiga Shabeelle u saameeyay hirin iyo meelo qaar oo la ku barakacay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowladda Koonfur Galbeed mudane Daahir Cabdi Cabdullaahi Dictor Go oo xubin ku guddiga gurmadka fatahaada dowladda Koonfur Galbeed ee waliba iyo qadka taleefanka ka wareysadana gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose walina uu sheegay gudoomiyaha in weli dhibaatooyinka fatahaada degmooyinka Afgooye Daafeed iyo Qoryoole iyo Teegniin saasoo kalena way sheegay in ay go'ti buundadan ku weynaytay degmada Qoryoole wayna xayireen isu socodka dadka iyo gaadiidka wasiirka howlaha guud iyo guryeynta dowladda Koonfur Galbeed mudane Daahir Cabdi Cabdullaahi Dictor Go warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed la hadalay way jiray shir ka saabsan nimaada raayis oo la kala kulmay hay'ado taasoo kala nimaada raayis waraysi la kala weeldaday gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose maadaama dhibaatooyinka fatahaada jeysiden Shabeellaha Hoose badanta taasoo warbixintan ka dambeeyay uu ka qaadanay shirkan aan ku horey wali kala hadalnay hay'adda IRC oo runtii hana booqatay xafiiskan ay booqdeen guddiga way warbixin ka dhiibay mid raayiseen guud ahaan walaalyaal qobsoomay intii guddiga la magacaabay oo fatahaada ka saabsan sidaas oo kale iyona min wadaagna aaraad iyo wadaageen ee walaalyaal fadaan dadka inay qabadaan marka walaalyaal ku muhiimsan ay haytay iniyo wal alla wali information guud ahaan oo ka saabsan El Niño ka saabsan IDPs ka saabsan mid dhibaatooyinkii fatahaada jeysiden inay warbixin noo dhageysadaan wali warbixintii inka dambeeyay inay noo dhageysadaan runtii mid raayis in waliyaal badan meelaha dhigni wayna sheegan in si degdeg arintan waan ku qabado doonaan shirkii hore haykaas shirka lamaad runtii wali hay mid raayis inuu waraysi la weeldan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose xaalado inka dambeeyay oo gobolka marahay marka wayna sheegay mid raayis markii la ka tawaajidkun oo Afgooyonay Walaweyn iska raawni wali CTSA biyo ku dhamaadeen laakiin haddana wali mid raayis dhibaatooyinkii city on teeganta saas daraadii la fado in gargaar ay glandeelsi saas oo kale wali ha korray mid raayis geega inay boondadii Afgooy boondadii oo Qoryooley oo tii ku wiinaytay dadka gudawaayeen tii tuulooyinka dhan kooyaan tii oo baawarta markii jidkun goosan mid raayis oo aan dhaxay mid raayis Daafeed yoonay Afgooy dhaxay jidka mid go'omay mar jireen baawarta dhinaca Qoryooley siyo Baydhabo hegshaam gudbaan ama gobolada oo iska rawahan gudbaan marka inay dhibaatooyinka teeganta boondadii nafsi go'teen in sheegi maadaama boondadaas go'teen in si degdeg wallan qowd ilaa hadda walmeek oo laakiin mid raayis yoona may gulan wacyi gelin iniyo ganacsada mid raayis la hadalaan iniyo hay'ado mid raayis aawnad jeysteen la hadalaan saasoo kale inay xilqaan iyo ku soo biyaan dowladda Koonfur Galbeedna iyadoo garab sulinta marka information kaasana aan sheegi information kaas qaadan isla falanqayn insha Allah taala sidan ka dhaqso badan maalmoon iyo walka oo doontaas marka shirkaan inta ka saabsanay ala bas in la socotaan shirarkan way dhiyayeen mid raayis hadda markii wala sakor dhiyayeen saasoo kale may abdi leksiyeen halkii maalintiba lamadii maalin hal mar la qabday shirka si la socotaan mid raayis taasoo howlkan ninka deeqan mid raayis wasaaradda gargaarka oo runtii in ka mahadnagaan wasiir ku xigeenka wasiir ganay oo walbadan mal raayis arintan mid raayis howl badan kuwada saasoo kale way mahadnaqay dadkii guddiga ka tirsanay wasiir maxaad wasiir dowlaha maaliyadda oo kale la taliyaha madaxweynaha oo runtii mid raayis Maxamed Xasan Fiqi oo arrimaha gargaarka oo runtii geega goobjoogninka hay marka waliyaal badan يا مدى رئيس إن الله زفلان قيس تاسو رجعنا إن شاء الله إن ستة ولا قبض مركان تاسو شركات سابسنا إذا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد مومن ورباين تكون فرق البيت بيدبو